shaqaalaha iyo dhammaanba howlwadeennada TV-ga caalamiga ee Home Cable TV ayaa casho sharaf ku maamusay wariyihii muddada ku xidhnaa dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya caasimadiisa Jigjiga ee Mukhtaar Nuux Ibraahim. Munaasabaddan oo ay kala soo qayb galeen gudoomiyaha urur saxaafadeedka Somaliland ee Solja Maxamed Xuuto, agaasimaha guud ee TV-ga Home Cable TV Maxamed Cabdi Ilig, agaasimaha ku-xigeenka TV-ga Xamse Cali Bulbul, madaxa wararka TV-ga Xildhibaan Sangub iyo dhammaanba xubnaha urur saxaafadeedka gobolka Gabiley. waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay Xamse Cali Bulbul iyo afayeenka saxaafadda gobolka, waxaana hadaladoodii kamid ahaa aan soo dhaweynino muddadii koobneed ee ku xidhnaa xabsiga magaalada Jigjiga ee wajaala laga qabtay muddadii u xidhnaa. waxaan aad ugu mahadcelinaynaa Home Cable TV ahaan dadkii ka qayb qaatay siideyntiisa. waxaan kaloo aad ugu mahadcelinayaa Solja gudoomiyaha Xuuto ugu horeeyo oo isaguna muddadii u xidhnaa si kullu cambaarin jiray xariga wariyaha. waxaan halkan mahadnaq ballaaran uga soo jeedinayaa cid kasta oo ka qayb gashay amba ka qayb qaadatay oo gacan ka geysatay soo deynta wariye Mukhtaar Nuux Ibraahim. waxaan horta Mukhtaar aan u qirayaa amba intaan ka aqaanaan ka sheegaya wariye Mukhtaar Nuux Ibraahim waa nin ku caana inuu dadka caawiyo amba uu gacan qabto cid kasta oo saxaafadda ku soo birta. anigoo aan inta badan saxaafadda ku soo jirno waqti dhow oo gaaban ku jira, haddana waxaan ka mid ahaa dhalinyarada inta badan ku xidhan saxaafadda. sidaa daraaddeed waxaan ogaa saxaafadda inteeda badan inuu gacanta soo qabtay. ka xiga Mukhtaar baan magaciisa caan baxay murtidin ku baraya. waa suxufi muuqlo. Mukhtaar waa hormoodkii madhaafaanka wariyaha sida macallimiintu ku tilmaamayaayo cilmi baa ka marago baal goraag markhaatiya. geesta kale isaguna waxa ka dareen celiyay wariye Mukhtaar Nuux Ibraahim. mahadnaqayaa maanta casho sharaftan igu maamusay bahda anu aan ka tirsanaayo Home Cable TV oo ay farxadeeda ila wadaagayaan iyo saxaafadda gobolka Gabiley oo aniga garabyadeediya waxaan aad ugu mahadnaqayaa maamulka telefishinka caalamiga Home Cable TV Farxaan Cali Maxamed Cabdi Sheekh Xamse Cali Bulbul. gabagabadii waxaa isaguna munaasabadda soo afmeeray agaasimaha guud ee TV-ga Home Cable Maxamed Cabdi Ilig. aflagaadiimay jirin wax dhibaato aynu Mukhtaar ku sheegi karnaa mu jirin. wax xuquuqo dheeraad ah uu leeyahay ma jirto. wax xuquuqo dadkaasi uu kaga hooseyn karaana ma jirto. TV dagaal ku jirana maaha. TV dhib wadana maaha. waa TV xaq u leh waxa xeerka saxaafaddu ee saxda ah u siiyay xuquuqda uu leeyahay oo kaliya inuu guto. cid duulaan kuma aha, dal gaara duulaan kuma aha, madaxweyne gaara duulaan kuma aha. waa inaanu dareenka bulshada ka jawaabno, waa inaanu dareenka bulshada ummadda gaarsiino, dareenka ka dhibaataysan iyo dareenka ka barwaaqaysan waa inaanu labadaba gaarsiino. shaqadeedu waa intaa weeyaan. Home Cable TV waxa uu u mahad celinayaa siduu Mukhtaar dareenka wanaagsan uga keenay dawlad deegaanka, sidii wanaagsaneyd ee uu Mukhtaar sheegay in loola dhaqmay, inaanu iyagana uga mahad celino. ma haddii uu Mukhtaar oo isagu dhibka mutay waan ku ammaanaynaa inay si wanaagsan ula dhaqmeen, inaan dhibaato loo geysan, balse waanu cambaaraynaynaa in xuquuqdiisa waaye looma baahnayn. taa in xuquuqdiisa ku waayo dhib aan u geysan looma baahnayn. taana waanu sheegaynaa, kama gabanayno, waana xaq u leeyahay. waxaan aad iyo aad uga xumahay dhibaatada qoyska gaarka u soo gaadhay ee iminka aynu ogaanay ee dad dhibaato dhaqaale ay qoyska gaarsiiyeen Mukhtaar reerkiisa oo ay sheegayeen inay Mukhtaar iyagu u soo deyn karaan si ay dhaqaale reerkii uga helaan, ama ha joogaan Itoobiya ama ha joogaan Somaliland. taasi waxay ahayd wax fool xun, balse insha Allah tacaala maadaama aanu isku baahnahay dadaalkeeda iyo sidii looga rogaal celin lahaa arrintaana waajib naga saaran oo noo yaalla ay tahay. waa Cabdi Cabdilaahi Daahir, telefishinka caalamiga ee Somali Channel, magaalada Gabiley.